السلام عليكم صاحبيال isku soo noqod wanaagsan muuqaalkan waxa aynu ku baran doonaa saddex qodob oo aad iyo aad muhiim kugu ah hadii aad doonaysid website-kaaga inuu Google AdSense soo aqbalo saddexdan qodob waa inuu website-kaaga leeyahay dabcan muuqaalkan aynu ku baran doonaa runtii waxaynu isleegi doonaa website-kan oo kamid ah website-yada markaa aniga aan gacanteeda ku sameeyay aad iyo aad ay u badan yihiin website-yada markaa aan sameeyay iyagu markaa isku jira Blogger iyo WordPress hadaba muuqaalkan aynu ku baran doonaa qaybtaas Okay hada waxa isleegi doonaa horta waa maxay Google AdSense la sheegay Google AdSense waa company markaa xayeysiinta saara website-yada iyo YouTube-ka okay waana company Google u qaabilsan qaybta xayeysiinta waana qaybta kaliya ee shirkadda Google ay ka soo gasho dhaqaalaha ugu badan iyagoo markaa company-da kaga qaata lacag dabcan company-du waxay raadinayaan alaabahooda ama badeecadooda wax ka iibsada okay kadibna waxay soo saarayaan yani Google AdSense lacag ka qaadanaya waxa uu soo saaraya YouTube-ka channelska iyo markaa website-yada iyagoo markaa u soo saaray in website-kaas traffic uu leeyahay oo kaliya inay ka gataan alaabtiisa okay kadib waxa lagu siinayaa lacagtii Google AdSense uu ka qaatay company-gii xayeysiinta ku soo saartay qaybtii 55% ayaa adiga lagu soo celinaya okay hadaba muuqaalkan aynu ku baran doonaa saddex shardi oo laga baahan yahay inuu AdSense ku soo aqbalo intaadan codsan ka hor inaad website-kaaga u samaysato okay arkaysan website-kaaga meel walba xayeysiin ayaa laga soo muujinaya insha Allah hadaad post ku dhufato dabcan markaad post soo dhufato kadib waxa arkaysaa xayeysiin kale arkaysaa xayeysiin ayaa markaa website-kaaga laga soo muujinaya adigoo markaa sida dhaqaalaha uga faa'iidaya okay Google mar walba Google aad galiso tusaalahan oo kale waxaad galisay Somali sheeko kala isgelisay okay website-yadan dhan aad arkayso iyagana sidaas si lamid ah ay u shaqeysanayaan oo markaa xayeysiinta ay markaa lacag ka faa'iideyaan iyagoo markaa qof walba markaa Google ka soo raadiyay ama qof walba aad u share garayso website-kaaga aad ka faa'iidi doontid sentence tusaalahan oo kale waxayna ku xiran tahay location-ka markaa qofkaas uu ka soo booqanayo tusaalahan Mareykanka ka soo booqanayo 30 senti baa helaysaa ama wuxuu ka soo booqanayaa Soomaaliya inta badan waxa weeyaan 0.05 ilaa 0.10 ayaa lagu siinayaa halkii click ayaa lagu siinayaa waxa rajaynaynaa faanta insha Allah hadaba waxaynu soo leegi doonaa saddexda qodob ayaynu soo leegi doonaa oo aad iska ilaaliso inta aadan dalban kor aad ka hortagto okay qodobka koowaad waxa weeyaan waa wax maarta aan soo aruuriyay weeyaan ma waxa aan iska sheegay dabcan waa wax markaa arday ay la soo wadaagtay ciladahan aan ka xaliyay dabcan cilada koowaad waxa weeyaan markuu website-kaaga sidan ku soo qoro markii aad doonaysid inaad HTML-ka wax ka bedeshid HTML-ka waan soo eegi doonaa dabcan HTML-ka waxa inuu ku soo qoro widget with id b AdSense bracket/p haduu ku soo qoro website-kaaga waxay ka dhigan tahay fadlan AdSense ayaa website-kaaga ku xiran ama waad ku dalban yahay ee website-kaaga waxba ka bedelin okay waxa rajaynayaa inaad fahanteen insha Allah hadoo la okay waa inaad connect-ga aad ka furtaa markii aad doonaysid inaad wax ka bedeshid waxa rajaynayaa fadlan haduu ku dalban yahayna hadii aad remove ka dhahdo halkaas ay kaaga ekaatay dalbashadii aad dalbatay cilada labaadna waxa weeyaan ciladan website-kaaga markuu sidan ku soo qoro waxa weeyaan content-ga qaabka aad wax u qortay ma aha qaab saxan dabcan ma aha qaab saxan okay maxaa laga baahan yahay tusaale kale inaad qorto qoraal aad iyo aad u qurux badan oo saxan xitaa marka qaar kood waxa jirta inay dhahan language-ka Soomaaliga ma accept garan balse way aqbalaan inta badan way aqbalaan marna waxay dhahan ma aqbalna dabcan balse hadii aad si fiican u qorto way ku soo aqbalayaan maxaan ka wadaa si fiican aad u qorto tusaale ahaan oo kale qodobka labaad aynu isla eegaynaa qodobka labaad waxa weeyaan hadii aan sharxano waxa laga doonayaa website-kaaga inaad u qorto qaab xirfadaysan qaab xirfadaysan waxa ka wadaa inaad wax qurux badan aad qorto content-ga aad qoraysid inuu yahay content experience ku jirto lama doonayna wax low ah aad qorto tusaale hadda website baan booqanayaa website-kaas ayaan ku hadda website-kan oo kale ayaan booqday dabcan saarkayso hadda waa kana qaabkan oo kale inaad wax u qorto ay la doonayaa qaabka la dhigdhigan oo aad iyo aad u qurux badan oo markaa aad qorayso ay leeyihiin mawduucyo yaryar oo qurux badan ama hadii aad xataa Soomaali aad ku qorto xitaa lagu soo aqbalay hadda BBC Soomaali qaabkii wax u qorto kale hadii aad u qorto 99% waxaan rabaa in lagu soo aqbalay waayo waxaad qortay wax aad iyo aad u qurux badan oo sentence-kii iyo wixii maarata ay kala dhigdhigan yihiin waxaan la doonayaa inaad qortid ugu yaraan 700 oo eray lama doonayo wax yar oo haafa oo intan oo kaliya ku eg inaad qorto tusaale kale dhalinyaradu waxay doonaysaa inta wax intan ku eg qorto waxa inta ku eg xog ma ah qofkii dhameystiraysa in markaa wixii uu fahmo okay
sidoo kale waxaa la doonayaa website-kaagana inuu leeyahay qaybaha hoose ee markaa loo yaqaano privacy policy, disclaimer, terms and condition iyo waxyaaba sida website-kii aan soo tusayay oo markaa yacni kamid ahaa website-yada markaa isagana blogger ahaan aan u sameeyay dabcan oo ah inuu markaa website-kaaga leeyahay qaybaha oo dhan inuu leeyahay okay sidoo kale shardiga kale waxa weeye website-kaaga inuu domain leeyahay يعني domain la'aan website-kaaga macquul ma noqonayso website-kaaga inuu domain leeyahay hadaba muuqaalka qaybtiisa saddexaadna waxaynu ku baran doonaa sida markaa website-kaaga loogu sameeyo domain oo markaas website-kan oo kale markaa loogu xiro blogger insha Allah wali waxaynu ku baran doonaa qaabka loo iibsado domain aad iyo aad markaa u jaban loo iibsado oo markaa loogu xiro blogger-kaaga loomana baahna inaad haysato website-kaaga domain oo kaliya inuu leeyahay lama doonayo waxa loo baahan inuu leeyahay website-kaaga domain iyo hosting sidoo kale website-kaagan uu yahay website secure ah oo markaa SSL-ka uu ku xiran yahay okay hadaba muuqaalkan aynu ku baran doonaa oo markaa waxa aynu share gareyn doonaa screen-ka computer-kayga hadaba la idin okay saaxiibayaal sida arkaysaan hadda waxaan share gareeyay screen-ka markaa computer-kayga waxaynu isla eegi doonaa cilada koobaad sida markaa aad u xalin karto cilada koobaad waxay ahayd yacni inuu markaa kuu soo qoro markaa tusaale ahaan doonayso tusaale ahaan kale hadda website-kan haddii aan dhaho markaa view blog okay view blog ayaan dhahay طبعا waxaan doonaa website-kan sida u qurux badan qaybtan hoose ayaa waxa kaga jirta powered by blogger oo markaa waxaan doonayaa loogada inaan ka saaro طبعا markii aan tago yani HTML-ka markaan tago oo aan tago theme aan tago kadibna aan halkan ku dhufto yani qaabka looga saaro loogadaas weeyaan qaabka markaa looga saaro loogadan qaabka looga saaro oo markaa aan theme-ka tago kadibna aan dhaho edit HTML aan tago okay kor halka waxaynu qoraynay halkan dhexe ayana markaa waxaynu qoraynay control F si markaa uu nagu soo saaro halkan stage-ta kadibna markaa waxaynu ku qori jirnay copy right si markaa loogadaas aynu uga saarno okay kadibna enter ayaan dhahaynay ilaa ay nooga soo baxdo markaa yacni qaybtan hoose sida arkayso waatan okay wax yar hadaynu markaa enter kale aan si dhahno okay wayna dhaaftay dabcan mar kale hadaynu soo raadino okay okay sida arkaysaan magaca website-kan waa kan dabcan okay magaca markaa website-kan ayaynu ku qori doonaa magaca website-kan ayaynu markaa halkan waxaynu doonaynaa inaanu ku qorno ama ayaynu gelino tusaale ahaan magaca website-kaaga ayaa doonaysaa inaad halkan ku qorto oo markaa aad aad ku bedesho okay sidoo kale halkanna magaca website-kaaga ayaa doonaysaa inaad ku qorto oo markaa aad bedesho control V okay markaa doonaysa inaad save garayso oo aad save aad tiraado ayuu markaa waxa uu ku soo saari doonaa ciladan ayuu ku soo saari doonaa يعني cilada tan maaha tan waa soo sharxnay ciladan weeyaan tabcan tusaale wuxuu ku leeyahay arsensi wax noocaas ayuu ku soo qorayaa waxay ka dhigan tahay inteena badan dhalinyarteena yani waa uu iskaga dalban yahay arsensiga maba aaminsana inuu yahay website yani ama yani company-ga Google arsensi u qaabilsan ama isha dhaqaalaha ee Google uu yahay maba aaminsanaba oo markaa way iskaga dalban yahay waxay moodayaan inuu iska soo aqbalayo fadlan haddii aan shuruudaha aan dhamayn yani arsensi ma ku soo aqbalayo okay sharcigiisana waxa kamid ah arsensiga intuu ku dalban yahay website-kaaga xoog ma bedeli kartid theme-kan tusaale markaa save aad tiraado isagu wuxuu ku soo qori doonaa yani waxba ka khaldan website-kaaga balaa sidoo kale kuuma dhihi doono save okay hadda waxaynu soo eegnay qaabka meesha loo bedelo soo kale waxaynu soo eegi doonaa oo kale qaab kale markaa doonaysid inaad website-kaaga wax bedesho ama tusaale oo kale attribution-ka qaybtan oo soo kale ayaa waxa doonaysaa inaad ka saarto powered by blogger taas oo kale ayaa doonaysaa inaad ka saarto inta badan waxa la tagaa yani waxa lagu dhuftaa qaybtan afarta dhibic baa lagu dhuftaa kadibna hoos ayaa loo baxaa hoos kadibna waxa lagu dhuftaa attribution okay inta marka ku dhufato halkan ayaad click siinaysaa kadibna intan ayaa iska saaraysaa okay mar walba aad dhahdo ileen website-kan hadda yani waxa uu inoo sahlayaa yani arsensi ayaan u dalbanay waxa uu nagu safsaf garoobiyo balse markuu yani arsensi ku dalban yahay oo meeshan ininka ay ku qoran tahay yani hadda wuxuu leeyahay samayso Soomaa adiga wuxuu ku yahay uu ku dalban yahay ama mar ayuu soo diiday sidaas waxay ka dhigan tahay inuu ku dalban yahay oo kaliya connect ama kale ku dhahdo kaliya waxa sameynaysaa haddii aad doonayso inaad theme-kaaga wax ka bedeshid waa inaad ka remove garaysaa sidaas ay xalkaagu yahay dabcan si kale ma noqon karo okay qaybtaasna saaxiibayaal waynu soo eeg okay saaxiibayaal sidoo kale waxaa jira waxaan leenahay Telegram channel ayaan leenahay sidoo kale Telegram channel-keena waxaa ku jira dhalinyaro aad iyo aad u fara badan oo markaa aqoon aynu kala faa'iideysano wax walba markaa aynu cilmi u aragnana aynu soo dhigno haddii aad doonayso inaad soo gasho markaa yani waxaad ka soo galaysaa qaybta commentiga linkiga yaala qaybta commentiga yaala waa kan linkiga inaad ku dhufanaysaa kadibna haddii aad doonaysid inaad la soo xiriirtid waxaad igala soo xiriiraysaa WhatsApp number-kan okay saarkayso Telegram channel-keena waa kan dabcan waxaa ku xiran aad iyo aad faraha badan masha Allah oo runtii waxaynu kala faa'iideysano
okay saaxiibayaal muuqaalkan waxaynu ku baran doonaa qodobka saddexaad ayaynu ku baran doonaa qodobka saddexaadna waxa uu noqon doonaa in markaa website-kaaga aad u samayso wax loo yaqaano domain iyo hosting dabcan domain iyo hosting wax kale maaha yani website-kaaga inuu yani .com ay raacdo tusaale facebook.com google.com yani bbc.com yani website-kaaga inuu domain yeesho okay yani hadda google haddaad ka raadiso website walba tusaalaan taariikh aad ku qortid waxaa arkaysaa website walba waxa uu leeyahay domain domainkan waa qayb kamid ah in marka yani shuruudaha ugu muhiimsan waliba waa shuruuda koobaad website-kaaga okay shuruudaha way ay badan yihiin waxay kaleeyihiin yani marka domainka samaysato in website-kaaga articles aad iyo aad u qurux badan ama design website-kaaga aad iyo aad cajiib ah aad maarata u samaysato aad kala garayso aad qurxiso aad naqshadayso logo aad u samaysato runtii arsensi markaa uu kusoo aqbalay waliba website-kaaga aad share garayso oo markaa views fiican u helo dabcan okay hadda waxaynu soo samayn doonaa qodobka yani saddexaad ayaynu geli doonaa oo ah in markaa website-kaaga domain aad u samaysato sidoo kale website-kaaga blogger-ka oo .blogspot-ka aad u bedeshid domain so website-kan oo kale dabcan hada saarkaysan website-kan waa blogger dabcan saarkayso oo blogger okay muuqaalkan aynu ku baran doonaa waliba qodobkan saddexaad okay marka aad doonaysid inaad website-kaaga domain hosting u samayso waxaa jira yani waxaa ku dhufanaysaa yani linkigan ayaad ku dhufanaysaa linkiga ayaa ku dhufanaysaa commentiga aan kusoo dhigaya ayaad ku dhufanaysaa yani qaybta description-ka aan dhahay qaybta description-ka aan kusoo dhigaya aad ku dhufanaysaa linkigan aad ku dhufanaysaa okay sa arkayso yani linkigan waa halkan waxa kuu qoraya shirkadda domainka sidoo kale yani waxa ku sameeyay discount boqolkiiba 60 waynu soo arki doonaa discountiga lagu sameeyo insha Allah okay linkiga markaa sidaa ugu dhufto wuxuu geyn doonaa website-ka ayuu ku geyn doonaa dabcan sidoo kale waxaana loo sameynayaa 99% ah yani sa arkayso waxay ahayd $9.99 waa la cancel oo waxa lagaaga dhigay $2.95 waxaad ku helaysaa waxyaabahan oo dhan yani domain oo kaliya kuma helisid domain oo kaliya waxaa ku helaysaa free SSL sidoo kale waxaad ku isticmaali kartaa WordPress 24 saac lagu caawinaya waxyaabo aad iyo aad cajiib u hawayaan dabcan okay sidoo kale waxaa ku helaysaa 23 domain 20 jeer ayaa website ku samaysan kartaa dabcan waa wax aad iyo aad cajiib ah sidoo kale markaan ku sii dhuftay yani waxa ay soo baxay saddexdan qaybood يعني qaybtan way badan tahay balasta iyo choose balasta shirkadaha waaweyn ay isticmaalaan balse adiga waxa ku filan qaybtan oo kaliya isticmaasho yani one website box 20 GB unlimited weeyaan unlimited bandwidth waa unlimited dabcan soo kale waxa ku samaysanaysaa 25 subdomain yani waxay ka dhigan tahay 25 website adoo ku samaystay okay kadib waxa ku dhufanaysaa select aad ku sii dhufanaysaa saaxiibayaal okay kadibna halkan yani website-ka yani ayaad gashanaysaa domainkiisa aad gashanaysaa okay tusaalahan oo kale hadda website-ka aynu sameeyno magaciisa wax loo yaqaana Sabinho waxa iska leh arday kamid ah ardayda markaa okay marka aanu iibinayo domainka okay saaxiibayaal sida halkan ay gelinayna domainka markaas u gelina waxa dhacaysa yani halkan wuxuu leeyahay .com-ka dabcan saarkayso halkan waxa jirta .com yani way badan yihiin .com .net .org yani waa saddexda ugu cajiibsan waxa weeyaan .com waxa ku xigta kaalin talabaad .net .org okay sidan ay u kala baxaan dabcan balse haddii fadlan website-kaaga aad .com aad heli weydo .net waa cajiib .org waa cajiib balse wixii ka sareeyo .online iyo .site waxaas wax jira ma aha dabcan kugulama talin wax mar walba kugula talin lahaan .com ina markaa website-kaaga aad ka dhigto .com fadlan .com u daa mar walba okay haddii .com laga haysto waxba .net aadan .com ka dhiga insha Allah okay magaca .com-kaaga uu banaan yahay raaso insha Allah okay kadibna waxa dhihi doonaa next marka dhahno saaxiibaal waxa inoo soo bixi doona qaabka inoo soo bixi doona waynu soo arki doonaa dabcan okay qaabka inoo soo bixi doona qaabkan saakso the domain sabinho is.com is available hadduu ku soo qoro waxyaabo kale waxay ka dhigan tahay ma banaana okay hoos hadii noo baxno halkan waxa gelinaysaa magaca yani magacaaga iyo magaca aabaha halkan lastna waxa gelinaysaa magaca awowga okay country-ga waxa gelinaysaa wadankaaga aad gelinaysaa street waxa gelinaysaa yani xaafadda ama degmada aad ka degan tahay magaalada ama yani xaafadda aad ka degan tahay city waxa gelinaysaa yani magaalada aad degan tahay magaceeda postal code waxa gelinaysaa yani furaha Soomaaliya 252 hadii aad yani wadamo kala joogtidna dabcan halkan yani wadanka artid waa ku samaysan kartaa dabcan ay ka dhigan tahay okay saarkayso yani hoos ay soo baxaysaa phone number-kaaga waxaad ka bilaabaysaa eberka ma bilaabaysaa mar walba 6 hal ay ka bilaabaysaa hadaa Puntland joogtid 9 hadii markaa yani aad joogtid Somaliland 63 okay gmail-kaaga fadlan aad iyo aad iskaga hubi gmail-kaaga waa meesha kaliya oo markaa xogta lagu diri doono waynu soo arki doonaa dabcan okay soo kale hadii hoos u baxno yani waxa jirta kuwan marka yani sidan ayuu yahay marka website-ku marka koobaad yani laba jeer aynu discount sameeynay sidan ayuu yahay marka koobaad yani qiimaha waxa weeyaan $119 weeyaan inagoo markii koobaad yani 99.9 $2.95 looga dhigay ayaa hadana waxaan loo sii sameeyay discount aad iyo aad cajiib ah ayaan loo sii sameeyay waxa sameynaysaa kuwan ayaa tigta iska qaadaysaa yani kuwan ayaa tigta ka qaadaysaa oo marka waxay ku noqon doontaa qiimo macquul ah ayuu marka ku noqon doonaa oo marka qof walba uu awoodo dabcan
okay waxay ku noqotay $35.4 waxa lagu dhimay 70 discount $84 ayaa laga jaray dabcan okay mar walbana waxa sameeysaa waxa soo isticmaashaa linkigan insha Allah soo isticmaal si marka aad discount balaaran aad u hesho insha Allah okay soo kale saaxiibaal inta marka sameeynay yani dabcan waxa sameeynaysaa oo kale yani haddii waxaan idin soo celiyo halka koowaad waxa gelinaysaa magacaaga gelinaysaa magacaabaha halkan kale magacaaga halkan waxa gelinaysaa wadankaaga ayaa gelinaysaa halkan waxa gelinaysaa xaafadda degmada degto magaalada ayaa gelinaysaa postal code Soomaaliya postal code malaha 00252 gelinayna inta badan phone numberkaaga waxa gelinaysaa 62 hadii aad joogtid yani Muqdisho hadii aad joogtid Puntland 9 mar walba eberka waa ka deynaysaa dabcan ay ka dhigantaa okay halkan emailkaaga gelinaysaa hoos ay baxaysaa kadibna hoos ay baxaysaa kuwan ayaa tagtid qaas marka dhaqaalaha kugu yaala $35.4 okay soo kale hadii marka hayno hoos u sii baxna saaxiibaal halkan waxaad gelinaysaa kaarkaaga numberka dheer yani kaarkaaga numberka dheer ayaa gelinaysaa dabcan ama visa card ama mastercard dabcan visa card ama mastercard waxa uu eegayeen sidan visa card ama mastercard okay aynu isleegaynaa dabcan visa card okay visa card ama mastercard kii marka aad doonaysid aad isticmaalaysid aad gelinaysaa kaarka numberka dheer waa numberka dheer weeyaan dabcan iyo xilliga uu dhacay aad gelinaysaa dabcan okay halkan ay gelinaysaa kaarka numberka dheer ee wax ma taqaana xilliga uu dhacayo halkan waxa gelinaysaa signature-ka waxa loo yaqaan kaarka qaybtiisa gadaal saddex number oo gadaal ka yaal ay gelinaysaa waa hadii marka aad isticmaalayso yani mastercard ani dabcan waxa jira option badan oo aan isticmaalo hadda waxaan isticmaali doonaa yani Paypal okay Paypal aan isticmaali doonaa muuqaalkan okay saarkaysa saaxiibaal Paypal ayaan isticmaalay Paypal ayaan ku dhuftay more payment ayaan ku dhuftay kadibna Paypal ayaan yiri balse haddaad kaar isticmaalayso qaybtan aad ku dhufanaysaa okay inta kadib saaxiibaal hoos aad u baxaysaa waad ka soo hubinaysaa mar walba waad ka soo hubinaysaa okay mar walba iska hubi dabcan dominkaaga iska hubi okay waa saxan yahay kadibna waxa dhahaysaa yes I have ayaa dhahaysaa inta kadib submit ayaa dhahaysaa waa uu wareeganaya process ayuu galaya kaarka ayuu kugu tuuri doonaa insha Allah waynu isla arki doonaa dabcan muuqaalka okay saaxiibaal sa arkaysaan Paypalka ayuu geeyay waxaan gelin doonaa Paypalkayga okay haddana saaxiibaal waxaan geliyay Paypalkayga passwordkiisa kadibna waxaan leeyahay log ayaan dhahayaa okay don't save ayaa dhahayaa oo internetka khatariisa ayaa badan lagu save garaysto Paypalkaaga okay kadibna wuxuu dhahayaa Paypalkaaga ma waxa aad doonaysaa inaad ka dirto lacagta okay baan dhahayaa waan ka dirayaa agree ayaan dhahayaa agree and continue ayaan dhahayaa sidaas ay markaa website-kaaga yani aad ku iibsatay domainka iyo hostingka markaad isticmaalayso Paypal weeyaan dabcan soo kale kaarkana yani haddaad isticmaalayso يعني كارك قيبتسا ayaad click siinaysaa kadibna yani kaarka numberkaaga dheer yani xilliga uu dhacayo iyo numberka gadaalka yaala ayaad ku dhufanaysaa balse anigu waxaan isticmaalay Paypal ayaan muuqaalkan ku isticmaalay okay saaxiib balse arkaysaan waan ku guuleysanay dabcan okay waxa uu leeyahay yani dabcan password يعني password u sameeyay ayuu leeyahay dabcan balse waxaan ku bari doonaa qaab kale oo aad iyo aad cajiib u ah oo marka aad uga baahaneen mar walba passwordka yani sleedaha waa laga qashay dabcan ama waa laga arkay passwordkaaga aad u bedelan karto dabcan ayaad muuqaalkan ku baran doontaa insha Allah saaxiibayaal sida arkaysaan domain iyo hostingkii waa aynu iibsanay waxaanu ku iibsanay $35.4 marka Paypalkeena aynu ka dirnay dabcan okay waxaanu sameyn doonaa muuqaalkan waxaan ku bari doonaa qaabka marka yani passwordkaaga aad u bedeli karto waynu sameyn karnaa balse qaab kale oo xariif ah ayaan ku bari doonaa insha Allah okay waxaanu booqan doonaa hadda yani Gmail-keena aynu booqan doonaa dabcan okay Gmail-keena waxaan loogu soo diri doonaa yani warqadahan ayaan loogu soo diri doonaa warqada koobaad waxa weeyaan يعني inaan verify gareyno weeyaan warqadan yani inaan verify gareyso domain-kaaga inaan verify gareyso weeyaan dabcan okay verify aad ku dhufanaysaa waa verify gareysa dabcan kadibna waxaad ku soo dhufanaysaa home ayaad ku soo dhufanaysaa you have successfully airway okay inta kadib waxa sameynaysaa halkan ayaad imaanaysaa yani waa markii aad doonaysid yani laba faa'iido ku tusaya hadda waynu sameyn karnaa yani dabcan in marka yani oo password kaliya aan u sameeyno balse waxaan ku tusayaa faa'iido marka passwordkaaga aad mar walba abdalan karto forget ayaa dhahaysaa okay forget marka dhahdo halkan ayaa passwordkaaga yani waxaad gashanaysaa domain-kaaga magaciisa ayaad gashanaysaa sabinho.com okay saaxiibayaal kadib halkan waxaad gelinaysaa domain-kaaga magaciisa domain-kii aad soo samaysatay magaciisa aad gashanaysaa okay inta kadib next ayaa dhahaysaa dabcan waxa lagu dir doonaa warqad waxa lagu leeyahay yani waa dirtay dabcan tegaysaa Gmail-kaaga inbox aad ku dhufanaysaa dabcan waxaba ku taalo already warqad ayaa ku diyaarsan dabcan okay warqadaha nala soo diro kala waxa kamid ah warqadan oo ah warqadii marka yani payment confirmation-kii cadeynaysa
okay balse warqadii hadda aynu forgetka aynu ku sameynay waa tan no reply ku qoran password reset okay mar walba doonaysa passwordkaaga ma dalato qaabkan ay beddelaysaa reset password ay dhahaysaa okay passwordkaaga ayaad markaa halkan gashanaysaa dabcan okay passwordkaaga waa inaad ka dhigtaa xarfo iyo markaa yacni aad ka dhigtaa dabcan okay kadib markaa waxaan sameynayaa waan soo copy garaysan ama yacni markaan aan gelinaya dabcan aduu aan waxba soo copy garaysan ayaad gashan kartaa okay intaa kadib saaxiibaal kadibna waxaad dhihi doontaa yes ayaa dhahaysaa laba jeer ayay ku celinaysaa okay kadibna waxaad dhahaysaa next ayaa dhahaysaa oo markaa sidaas ayaa website-kaaga waxaa ku samaysay password cusub okay update ayaa dhahaysaa kadibna go to login ayaa dhahaysaa okay saaxiibaal waynu isla eegi doonaa okay kadib waxaan sameynaynaa bloggerka aynu tegaynaa oo waxaan doonaynaa domainkan aynu samaysanay inuu markaa bloggerka aynu ku xidhno okay blogger aynu tegaynaa kadibna sign aynu dhahaynaa sign in aynu dhahaynaa dabcan okay intaa markaynu sameyno waxaynu ku dhufanaynaa yacni domainka marka aynu samaysanayno aynu ku dhufanaynaa gmailkiisa aynu ku dhufanaynaa okay intaa kadib saaxiibaal muuqaalka waxaan ku baraynaa sida markaa yacni domainka loogu xiro website-kaaga okay kadibna sidaas ay dhahaysaa kadibna haddana domainkaagii magaciisa aad gashanaysaa okay intaa kadib yacni haddii uu markaa yacni kaa diido oo hore lagu samaystana yacni waxbaa iska raacinaysaa dabcan uma baahnidba .blogspot waayo .blogspot wax jiraba ma aha dabcan okay kadibna waxaanu sameynaynaa mar kale aynu gelinaynaa kadibna waxaanu dhahaynaa finish aynu dhahaynaa okay sidaa waxaanu ku samaysanay website-ka bloggerka aynu ku samaysanay okay muuqaalkeenan balse ma aha yani inuu markaa website blogger dhammaystiran sameyno oo waxaan ku tusi doonaa muuqaal aan markaa ku sameynayno website dhammaystiran oo blog ah okay kadib yani waxay imaanaysaa yani halkan ay ku qoran tahay settings ay imaanaysaa settings markaa timaado kadib halkan hoose ayaa markaa tegi doontaa halkan hoose aad tegaysaa meesha ay ku qoran tahay blog address ama population custom domain aad ku dhufanaysaa okay halkan waxaa ku gelinaysaa yani www aad gelinaysaa website-ka magaciisa ayaad raacinaysaa dadkan saddexda w waxaa ka dhigaysaa saddex w oo yaryar ayaa ka dhigaysaa kadibna waxaad dhahaysaa saaxiibaal safe ayaa dhahaysaa waxa kuu soo bixi doona waxyaabahan name meeshay qoran tahay ayaad yani meesha name ay ku qoran tahay waxa ku qoran settings c name waxa ku qoran www halkan waxa ku qoran gs.google.com okay waxaa tegi doonaa yani domainka ay tegi doonaa sida inoogu soo baxaya yani markaanu passwordka aynu gelinay dabcan inspect aad taabanaysa haddii computer haddii aad mobile isticmaalaysana way ka fiican tahay oo markaa sidiisa ayuu kugu soo baxaya okay kadibna waxaad tegaysaa domains halkay ku qoran tahay kadibna waxaad kasii tegaysaa my domain halkay ku qoran tahay okay intaa markaa samaysa saaxiibaal sidan ayaa kusoo bixi doontaa halkan manage ayaa kusoo bixisa halkan ayaad ku dhufanaysaa manage halkan ayaad ku dhufanaysaa kadibna waxaad ka dooranaysaa 4 qayb kusoo bixiya DNS ayaad ka dooranaysaa okay intaa markaa samayso oo DNS asaa u dooratay hoos ayaa u baxaysaa saaxiibaal hoos ayaa u baxaysaa cname halkay ku qoran tahay aad tegaysaa kuwan oo dhan ayaad iska dhiganaysaa okay kuwan oo dhan waad ka saaraysaa dabcan kuwan oo dhan waad iska remove garanaysaa oo markaa waxa aynu markaa ku baranaynaa sida markaa website-kaaga waana qodobka saddexaad sida markaa website-kaaga loogu sameeyo domain dabcan website aan domain lahayn website ma aha dabcan okay kadibna kuwan oo dhan waad iska dhiganaysaa dabcan okay haddii aad fahmi wadan insha Allah aniga ayaan ku caawinaya ila soo xiriir insha Allah arday baan kugu xirayaa ka caawin doona yani qaabka aad u iibsan lahayd systemka oo dhan insha Allah okay saarkaysa cname-ka waa aynu diifinaa dabcan kuwan kale maaha cname-ka oo kaliya ayaa markaa bedelaysaa dabcan okay kadibna saaxiibaal waxaad dhahaysaa add record ayaa dhahaysaa halkay ku qoran tahay intan koowaad halkaa koowaad waxaad gelinaysaa www ay gelinaysaa www saddex w da meesha inuu ka keeno waan isla arki doonaa dabcan waxaan ka keenay www waa name-ka okay destination waxaynu gelinaynaa gs.google.com intan ayaa soo copy garaysanaysaa intan ayaa copy dhaanaysaa oo copy dhaanaysaa waxay tegaysaa website-kaaga aan dhahay domain-kaaga kadibna halkan ayaad ku paste garaynaysaa okay kadibna saaxiibaal waa save garaynaysaa meesha koowaad waxaan geliyay www meesha labaadna waxaan geliyay gs.google.com intaba waxay ku yaalaan yani halkan ayay ku yaalaan www iyo gs.google.com okay inta kalena yani meeshan kale haddana waxa ku qoran an name ayaa ku qoran nameka waxaa gelinaya intan kale ayaan gelinaya dabcan way kala bedelan yihiin website walbana isku mid maaha dabcan okay waan copy garaystay kadibna waxaa dhahayaa yani waatan cname naga khaldamin add record ayaan dhahayaa laba mid ayaan ku soo garanaya dabcan okay saaxiibaal sa arkaysaan qaybtan ayaynu markaa copy garaysanay nameka okay nameka ayaynu copy garaysanay kadibna halkan ayaynu markaa ku paste garaysanay dabcan okay qaybtan kale markaa waxaan soo copy garaysanaynaa destinationka ee markaa qoran tahay gv qaybtan ayaynu markaa soo copy garaysanaynaa ilaa gv ilaa .com okay control c ayaynu dhahaynaa okay control c ama sidan ayaad dhihi kartaa dabcan kadibna markaa yani domain-kaaga ayaad ku laabanaysaa kadibna halkan ayaad ku paste garayn doontaa labada tig markaa ku saaran kadibna safe ayaa dhahaysaa dabcan saaxiibaal okay marka uu ku save garaysmo ayaa yani qaybta kale markaa yani bloggerkana save garayn doonaa bloggerka aynu tegaynaa dabcan kadibna waa aynu save garaynaynaa haddii uu kaa diido dabcan wax yar ayaa sugaysaa ilaa 2 daqiiqo ilaa 3 daqiiqo ayaa sugaysaa iska dulqaadanaysaa insha Allah okay
si markaa mar walba uu website-kaaga u noqdo website aad iyo aad u qurux badan oo sida markaa website-kan oo kale ah ama yacni website-kan ay ku qoran tahay okay sida website-kan oo kale ah uu kuu noqdo mar walba yacni ama yacni xayisiinta lagu soo aqbalo AdSense yacni aad u saarato markaa yacni website aad iyo aad maarata professional oo aad u samaysato oo markaa AdSense-ga uu ka muuqan yahay dabcan oo markaa meel walba website-kaaga laga soo muujiyo waxaa u baahan tahay yacni inaad markaa website-kaaga aad maarata yacni aad domain aad u samayso dabcan okay soo kale saaxiib hadda haddaynu ku laabano yacni website-ka haddaynu ku laabano kadibna mar kale aynu save garano okay saaxiibayaal kadib marka xoogaa aad sugtid waxaa samayn doontaa save ayaa dhihi doontaa oo waa aad save garayn doontaa kadibna waxaa kuu soo bixi doona yacni sidan save settings updated okay intaa markay kuu soo baxdo kadib waxaa samaynaysaa halkan ay ku qoran tahay redirect hal mar oo keliya ayaad click siinaysaa oo sidaa u furaysaa open okay saaxiibayaal haddana qaybtan kale yacni https ay ku qoran tahay iyadana hal mar oo keliya ayaad click garaynaysaa haddii aad laba mar aad furto labadan website-kaaga error ayaa ku imaanaya oo yacni waxay noqonaysaa site cannot be reached inuu maalmo sii ahaado dabcan hal mar oo keliya ayaad furaysaa okay intaa markaa samaysa saaxiibayaal waxaa samaynaysaa website-kaaga ayaad search garaynaysaa yacni website-kaaga ayaa wax dhahaysaa view blog ayaa dhahaysaa dabcan sidan ayuu markaa kugu soo muuqan doonaa oo haddii aad ciladan aragto hamoodin website-kaaga inay ciladii qabsatay website-ka yacni serverka ayuu ku xirmayaa dabcan website-kaaga serverka ayuu ku xirmaya serverkana wuxuu u baahan yahay si uu u xirmo waqti ayuu u baahan yahay dabcan intaa kadib saaxiibayaal waxaa samaynaysaa domain-kan ayaad qaadanaysaa control c ayaad dhahaysaa yacni control z haddaan ku soo celiyo control c ayaad dhahaysaa oo markaa waxaad tegaysaa domain yacni domain ayaad tegaysaa yacni waxaad tegaysaa meesha ayaad tegaysaa yacni domain-ka aad ka samaysatay okay kadibna waxaad tegaysaa halkan ay ku qoran tahay redirect halkan ayaad tegaysaa domain redirect intaa kadib waxaad tegaysaa halkan ay ku qoran tahay create redirect halkan ayaad ku dhufanaysaa original domain halkan ku dhufanaysaa yacni sabinho ayaad ku dhufanaysaa intaa kadib halkan ayaad yacni waad iska dhigaysaa markaa domainkii aad soo copy garaysatay ayaad ku paste garaynaysaa okay yacni https yacni saarkaysaan qabkan ayay usoo baxaysaa dabcan haddaan marka la raadiya dabcan sidan ayay markaa usoo baxaysaa okay aan soo copy garaysto okay kadib markaa aan kusoo laabto oo markaa control v aan dhaho okay sidan ayaa la rabaa https www.sabinho.com/ okay slashna waa iska tiraysaa kadibna saaxiibayaal intan markaa samayso yacni create ayaa dhahaysaa oo waad create garanaysaa sidaa markaa waxaad ugu xiratay website-kaaga ayaa markaa waxa ugu xiratay domain-kaaga yacni sidan website-kaaga waxuu sii ahaan doonaa 30 daqiiqo ayuu ahaan doonaa oo markaa website-kaaga waxba ha ka khaldin qaybtanna ha isku taataaban insha Allah ha moodin inuu markaa domain-ka uusan ku xirmin dabcan website-kaaga wuxuu noqon doonaa website sida markaa yacni sida website-kan oo kale ayuu noqon doonaa soo kale saaxiibayaal haddii aad doonayso inaad markaa aad barato course markaa dhammaystiran oo aad ku baranayso sida markaa website wordpress yacni aan dhehayso markaa website blogger aad iyo aad u qurux badan loo sameeyo dabcan okay waxaad ku dhufanaysaa YouTube channel-keena ayaad ku dhufanaysaa kadibna waxaad kasii dooranaysaa qaybta videos-ka ayaad kasii dooranaysaa intaa markaa samayso waxa aad ku dhufanaysaa qaybtan ay markaa ku qoran tahay halka sac soconaya muuqaalkan ayaad ku dhufanaysaa full course blog waxaan ku samayn doonaa yacni website aad iyo aad cajiib u ah oo aad iyo aad u qurux badan oo markaa dhalinyaro badan ay ka faa'iidaysato markaa AdSense soo aqbalay muuqaalkan ayaad ku baran doontaa insha Allah soo kale waxaa jirto kale koorsooyin kale oo markaa wada oo ah yacni WordPress dabcan insha Allah muuqaalo badan ayaan soo wadaa iyo muuqaalo badan oo la xiriira yacni maxay sida mataqaanaa looga shaqaysto internetka qaabab kala duwan freelancerka digitalka iyo waxyaabo kale aad iyo fara badan insha Allah aan soo wada haddii aad nagu cusub tahay saaxiibayaal nagu soo biir oo markaa channelka subscribe saar muuqaalkana like tahay ka xistin oo saaxiibayaal muuqaalka like saar una sii shirgaree asxaabta soo nagal telegram channelkeena insha Allah waxaad ka soo galaysaa qaybta markaa description-ka insha Allah